madaxii kala habare hogaamiye dhiirano ujeediya hadaf laho dadkiisana u hiliyo habsaamin ayaa tahee habsaamin ayaa tahee بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بمهد له waxaan halkan maanta ka salaamayaa bulshooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan ku shaacinaynaa maanta urur siyaasadeedka magaciisa la yiraahdo Aasaas waa ururka dibadhiska dadka iyo dalka waxaan halkan maanta ku gudbinaynaa fariintayada oo ah inaanu maanta aasaasno ururkaasi guushana waxaanu ka baryaynaa idamka Alle inuu Alla na siiyo aragtida aanu aasaasnay ururkani waxa weeye in dhalinyarta iyo jiilka maanta kacay la siiyo fursad hogaamineed waxaanu go'aansanay inaanu cududayada iyo aqligayaga iyo cilmigayagaba aanu midayno kuna soo saarno cid dhalinyara oo dalka hoggaankeeda ka qayb qaadata sharaf iyo wanaag baan u aragnaa maanta inaan waddankaygii ku noolnahay waxaanu aaminsanahay cimilo iyo jawi siyaasadeed oo ka hirgeli waayay dhammaan ururada kale iyo xusbiyada kale siyaasiga ah inaanu anagu hirgelino waxaanu doonaynaa inaanu da'yarta tolmoon ee aqligoodu wanaagsan yahay maanta aanu anagu u sameeyno goobtii cod lagu siin lahaa lagu garab istaagi lahaa loogu hiilin lahaa lagu dhisi lahaa taas waxay u baahan tahay karti dadaal ragna yaryaraysi ma laha waddanka 90% waa dhalinyar aragtideena iyo fikirkeena waynu cabiranaa waynu iibgeynaynaa dadkeenaynu ka dhaadhicinaynaa waxaynu ku talagalaynaa inuu inoo noqdo urur taabagala oo hirgala maxay tahay waxaynu ku dhisaynaa cududda dhalinyarta iyo aqliga dadka waaweyn waddankeena maanta waad ogtihiin jaamacadaha ardayda ka soo baxday cududdoodii iyo aqligoodiiba cidlo la fadhiyaan war maanta 10 sanadood oo soo socdaa baynu cududdeena ku talinaynaa dubdhiska dadka iyo dalkana waynu kaga talinaynaa rajo wanaagsan baan arkayay fafaalo fiican hordhaceedina waynu aragnay waddanka maanta waad aragtaan oo laasaanood dhalinyar baa ka soo baxdo maayir iyo ku-xigeenka maanta waad aragtaan oo gobolka Togdheer maayirkeeda iyo ku-xigeenkeedu waa dhalinyar sheekh waad aragtaan dhammaan gobolada kalena waa sida intooda badani waa ishaaro iyo fariin maxay sheegaysaa dhacdo kasta oo dhacda waxay horgalow tahay dhacdo kale waxaynu hirgelinaa oo aynu jideynaynaa urur siyaasadeed dhalinyar ah oo aqli iyo cilmi leh oo akhlaaq ahaan u dhisan inaynu ummadda hor keenno oo aynu soo gardaadino dadkii hoggaankooda qaadan lahaa dhibaato haysata dhalinyartu markay ururada iyo siyaasadda dhex galaan mana helaan platform ku habboon waa ragga aqliga badan leh ee ay waayuhu meelaha qaar ku dabreen ayaynu doonaynaa maanta inaynu sameeyno stage iyo fagaaro siyaasadeed oo ay ku tijaabiyaan awoodooda iyo aqligooda iyo kartida iyo hibooyinka Ilaahay uu siiyey ururka Aasaas taas uu taagan yahay waxaanu ka midaysanahay inaanu ka dheeraano qabyaaladda kala qoqobka iyo eexda dalkani kuma dhismayo nin jeclaysi iyo qof jeclaysi iyo danaysi wax kaliya tay taasi jartaa waa dulmigana waxyaabaha keena waa diyaar baanu nahay inaanu ka dheeraano waanu ku faraxsanahay inaanu maanta awoodayada iyo aqligayaga aanu tijaabino waddankayaga ku dhex tijaabino allana waanu la kaashanaa idamka Ilaahay urur siyaasadeedka Aasaas maanta muu bilaabmin fikirkani waa fikir muddo badan soo dhisnaa laga soo shaqeynayay oo laga soo taliyay aragti la isku geeyay iyo fikir lagu kalsoon yahay weeye kaas baanu dhalinyarta iyo bulshada iyo mujtamaca dhexgeynaa oo dhalinyarta Soomaaliland waan la hadlayaa maanta waxaan leeyahay dhalinyaroy war maanta noo hiiliyo hiil baan u baahanahay ragna yaryaraysi ma leh nin walba intuu gooyaa waa inta ku jirta iyo inta la garab istaago wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh